Bismillahirrahmanirrahim. Akhyaari kusoo dhawaada Sadak tutorials gaar ahaan coursekan aan ku baranaynay luqadda Java programming language. Casharkeena maanta waa casharkii koowaad ama lesson 1. waxaan ku arki doonaa ama goaliska aan ka leenahay casharkan inaan ku cover garayno. waxaa kamid ah marka koowaad welcome to Java programming language, in dadka audienceska ama dadka dhageystayaasha ah ama ardayda inaan kusoo dhaweyno maxay luqadan Java. talabaad coursekan markaan sameeynay waxaa jira coursekan qaab aan ugu talagalnay in loo isticmaalo. waxaan ka hadli doonaa sidoo kale how to use this course, qaabka coursekan aad u isticmaali kartid si aad aad uga sameysid wax la taaban karo kadib markaad qaadasid coursekan. marka casharkeena maanta waa introduction, waxaan ku cover gareyn doonaa labadan topic. marka koowaad kusoo dhawaada Java programming language. Welcome to Java programming language. runtii Java markii laga hadlayo, Java waa powerful programming language used in billions of devices. waa luqad powerful programming language markii loo fiiriyo functionalitieskeeda, number of deviceska lagu isticmaalay, featureskeeda, securitygeeda, waxyaalahaas oo dhan markii loo fiiriyo Java waa powerful programming language. waana arki doontaa waxa laga wado functionality, security, waxyaalahaas oo dhan. laakiin waxa ogaataa Java inay tahay maxay powerful programming language taasoo lagu isticmaalo billions of devices. u horeeya mobileska aad isticmaalaysid haddii uu yahay Samsung iyo waxyaalahaas, haddii uu ku jiro waaye Android Studio, Android operating system. sidoo kale waxaa ku laptops oo kale oo laga isticmaalaa Windows, Mac, Linux, any operating system oo computerska lagu shubo. sidoo kale Java waxaa lagu isticmaalaa gameska. coursekan markii aan bilaabayay I assume you waxaan ku taraafay ama ku aqoonsaday know nothing about Java language, inaad waxba ka aqoon luqadan Java. that means luqadeena waxaa loogu talagalay maxay from beginner to expert, in bilow aan kasoo bilowno ilaa meelo sareysa. sidoo kale I assume you waxaan ku ictiraafay have never programmed before, inaadan weli la hadlin computerka. that means inaadan weli wax programming. sidoo kale however si kastaba ha ahaatee previous programming experience, inaad leedahay khibrad hore oo programming ah, whether it is Java ha ahaato Java ama C ama C++, is a big plus. waa wax arrin aad u weyn oo coursekeena wax kusoo kordhinaysa dhanka fahanka iyo la socodka. sidoo kale maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno how to use this course, qaabka aan ugu talagalnay coursekan inaad u isticmaasho. marka koowaad arrinta koowaad waxaa weeyaan watch each video lesson in seconds. coursekeena wuxuu ka kooban yahay number of video lessons, tiro videos each videona waxaan ku arki doonaa maxay waxaan ku baran doonaa a thing oo ku saabsan luqadan Java. so waxaa laga rabaa video kasta inaad u fiirisid maxay sequence si iskugu xigaan. maanta hadaa 1 fiirsatay, 2 fiirso, 3 fiirso, 4 fiirso, 5 fiirso, 6 saas u wad. don't skip around, ha boodboodin. maanta haddii aad fiirsatay 1 ha fiirsan 20, haddana adoo 30 ha fiirsan, adoo aan fiirsan maxay 29, 28, 27. sidoo kale after viewing the lesson, markasta oo cashirka aad fiirsatid, try to do exercise, isku day inaad sameysid maxay exercise on your own, adoo ka keenaya maxay maskaxda. tusaale ahaan maanta haddii aan sameynay cashir soo bandhigaya program soo bandhigaya hello world, isku day hello world inaad inta bedeshid wax maskaxdaada ka keensatid. for example kale inaad dhahdid welcome to Java programming language, markasta isku day maxay inaad sameysid exercise aad ka keenaysid maskaxdaada. sidoo kale you must practice, waa inaad sameysid practice aad u fara badan si aad professional ugu noqotid luqadan Java. maantay cashirkeena intaasaan uga hadlaynay.
waana introduction ku saabsan coursekan iyo qaabka loo isticmaalo iyo isku soo dhaweyn ama inaan ardayda ku soo dhaweyno inaysan ka shalaynayn yani barashada luqadan Java qarnigan ama xilligan hadda la joogo. runtii luqadan Java waxaa jira fursado aad u fara badan oo qofkii barta uu ka faa'iideysan karo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Akhyaari waxaan leenahay nabadgelyo ilaa aan isku arki doono the next lesson. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.